dadweynaha ku dhaqan tuulada kulmiye waqooyi bari degmada Ceerigaabo ayaa shalay isugu yimaadeen waxay raaligelin ka bixiyeen arrimo dhaliyay dhawaan hay'adaha samafalka qaarkood oo joojiyay hawlaha ay deegaankaasi ka wadeen waxayna halka baqay uga direen hay'adaha samafalka xukuumadda Soomaaliland iyo golaha deegaanka Ceerigaabo shirweynahan ay ka soo qayb galeen madax dhaqameedka waxgaradka iyo waayeelka kale dhalinyarada aqoon-yahanka xildhibaanada deegaanka Ceerigaabo qaarkood haweenka iyo dhallaanka ayaa markii uu gabagabay waxa la kooban ka soo jeediyay boqor maxamed nuux aadan iyo chief aqalka deegaankaasi xuseen xasan cali kuwaas oo halkaasi ka sheegay in deegaankani nabadgelyo ka jirto hay'adaha samafalkana ka codsaday inay deegaankaasi dib ugu soo laabtaan maanta waxaan ku suganahay kulmiye waxaana halkan aan kaga baaqayaa oo ugu baaqayaa hay'adaha maamulka golaha deegaanka kulmiye inuu nabad yahay diyaar u yahay reer kulmiye hay'adihii waxaana halkan mar labaad kaga sii baaqayaa uguna baaqayaa dhammaan hay'adaha intii wax qabanaysa dhammaantood inay u furo tahay kulmiye iyo jiddi waxa ka mamnuuc ah aan hay'adahan uga digaya iyaga laftigooda wax kasto keenaya nabadgelyo xumo iyo dhuumaalaysi gaar ah iyo waxaan lagu socon oo ay meel la tagaan meel la aanay iman waxaan ugu baaqayaa jid kastaba ha u socoto xarunta oo ah kulmiye inay ku soo xoroodaan waajibaadkooda ka fushadaan maanta se kulmiye waa furan yahay ninkii marmarsiye ka dhiganaya kulmiye nabadgelyo maaha hay'adii baa ka xiran ninkii sheegay taas waa been baan leeyahay kulmiye waa furan yahay cidii wax u qabanaysana ahlan wa sahlan labadii hay'adood hore hadday keen tahay iyo haddii adeeysan tahay ee halkan ka tagay ee deegaanka ka shaqayn jireen iyagana waxaan ugu baaqayaa dib ugu soo noqdaan deegaankii dhammaan jiidahan waxaan ugu baaqayaa kulmiye deegaan inta deegaan kaliya la hadli maayo xooy korba la hadlaya wixii hay'ada idin yimaada idinkuna inaad soo wada dhaweysaan nabadgelyada kula shaqaystaan wixii hawlaha halkan ka jiray ee kale ee cawaatahaana dib baan u dhignay waqtigeedaynu isaga iman doonaa badankiisina maanta aan halkan kusoo gabagabeynay aan raaligelin ka bixinayaa boolojis ka bixinayaa hay'adihii wixii lagula kacay ee shacbiyadda halka joogta ama guddi ha noqoto ama shacbiyad ha noqoto ciddii wax ka soo gaadhay ee hay'adaha wax uga gudbeen raaligelin iyo boolojis baan taana ka bixinaya dadkii deegaankiina dadkii ala shaqaysan jirteen waa idin diyaar baahidii waa halkeedii way idin soo dhaweynayaan welcome baan idin leenahay idinka iyo wixii kale hay'adda DDC ee maanta halkan nagu ku sugan ee nala fadhida ee madaxdeedii heer gobol ay halka fadhido iyagana waxaan leeyahay waa soo dhaweynaynaa waa mahadsantihiin waajibkiina baa haysan shaqadii la idin soo dirtay ee ummadda ugu hayseen baa u timaadeen waxaan idinka codsanaynaa magana idinka nahay waxaan nala aragteen inay hay'adiin naga gaarsiisaan soona celisaan xildhibaanadan waxaan ugu baaqayaa inta nala joogtaan waa mahadsan tahay inta naga maqanna waxay dhammaantood markaa isu tagtaa ilaa min maayar waxaan naga gaarsiisaan heer gobol heer degmo in deegaankii maqraatiya ka tihiin diyaar u yahay waxqabadkii wixii khilaaf aan dhamaysanayno waxaa la yiraahdaa xuseen xasan cali muuse chief aqalka maaliyadda kamida waxaan halka sheegayaa sida uu ku baaqay boqor dhammaantayo dadkeena u fadhiyo in kulmiye ay tahay guri nabadeed inay tahay guri lagu soo dhaweynayo hay'adaha waxqabadka ay yahay iyo ciddii maal gashanaysa dadkuna tala go'aan ka gaadhay intii yarayd ee duushay ee la yidhaahdo hay'adaha waxa labada halka wax ka heleena taana raaligelin baanu ka bixinaynaa sidaa boqorku yiri waa idin raaligelinaynaa boolojis baanu idin siinaynaa waxaanu leenahay ku soo noqda halkii ina ka wadaan baanu doonaynaa mid kalena waa idinku sheegaynaa halkan hay'adahu mashaariicda dad Soomaaliyeed baa ku wadaan kolka laba qof isku xanaaqdo durduradana durdurinaysaan deegsadaay ka daaya dhaganugulaanta waxa la doonayaa in wax ka xalishaan Soomaalidaasi dhaqanku wax ka xalishaan dadka waanisaan dad carabiga la shaqaynaysaan dadka ina toosaan laakiin la tiraadaan labada dhigood qabad shibadhaga yeena la hadlay deedina ka daaya saabtaan idinkana idinka codsanayna waxaanu idin leenahay kulmiye rag iyo dumar wax la isku raacsanayeen nabadgelyo wax la idinku raacsanayeen soo dhaweyn wax la isku raacsanayeen in la idin la shaqeeyo inta dooxay la magacaabana inay ka wada shaqaynaysaan ay adin furan tahay la idinkuna ogaanayo haddii mas'uuliin tahay hadday deegaan tahay hadday guddi tahay hadday uqaal tahay waa idinkula shaqaynaynaa waliba si fiican baanu annaga iyaga guud ahaan ilaa gobol idin la shaqaynaynaa iyo degmo وعبد الله حسين درويش
shabakada caalamiga Oodweyne News tuulada Kulmiye.